madashan iyo munaasabaddan xil wareejinta labada agaasimo guud uu keenay madaxweyne ku-xigeenka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici agaasimaha guud ee cusub ee wasaaradda madaxtooyada Maxamed Cali Bile Guuleed agaasimihii hore Khadra Xaaji Ismaaciil Yunis agaasimo waxiidada la taliyaha madaxweynaha dhammaan marti sharafkii mas'uuliyiinta madashan jooga waxaad leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa goor gaaban hadalkeedna gaaban xafladani waxay la wareejin waynu sagootineynaa agaasimihii guud ee hore madaxtooyada imikana ah gudoomiye ku-xigeenka hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland Khadra Xaaji Geed waxaanu leenahay ilaahay xilka madaxweynuhu ku magacaabay ku fududeeyo ku asturo wixii halkan ka qabatay iyo wixii badalka laga sheekeeyay iyo darajooyinkay goonidu leedahay haysatana waxaanu leenahay waanu kugu hambalyeynaa halkan xarunta qasriga madaxtooyada muddadii agaasimaha guud ka ahayd wasaaradii madaxtooyada Maxamed Xaashina wasiirka ka ahaa iyo xukuumadii hore joogtay shaqaadu badan oo qurux badan oo wanaagsan baa laga qabtay Khadrana qayb bay ka ahayd agaasimihii guud ee arinta waday bay ahayd waynu ku hambalyeynaa shaqada ay si fiican u qabteen oo uga soo baxeen imikana shaqada cusub ee kale Allah u fududeeyo rajeynayna aqoon Maxamed Cali Bile aad baan u soo dhaweynayaa oo ku faraxsanahay waxaan leenahay ku soo dhawo shaqada qaran ee madaxweynaha qaranku ku yigmaday duco inooga baahan Maxamed Allah ku fududeeyo ku asturo aad iyo aad baa u mahadsantiin dhamaantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh